xafladda ku dhawaaqista musharax xildhibaan golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya Dr. Raisa Maymuun Faarax Samatar ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka, siyaasiyiinta, dhalinyarada, aqoon-yahanka iyo haweenka beesha. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah marti sharafta iyo odayaasha dhaqanka. xafladda lagu shaacinayo xildhibaanada gabadha Maxamed Gurgaati ee Madhibaan dhammaan inaan ka soo Maymuun Faarax Samatar aad baan waa maalin taariikh ah, waa maalin xusid muran, waxaan rajaynaynaa in maaragtay Ilaahay ku guuleeyo kursiga yaala halkaas oo waxaad u haysaa Maxamed Gurgaati iyo Madhibaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed ayaa aad u haysaa, waana ku garab taaganahay, waa ku hambalyeynaa, waxaan Ilaahay ka tooweynaa in alla kuu fududeeyo xilka iyo mas'uuliyadda lagu saaray aan kula rabno inaan ka soo qayb galo musharaxada doctoreysada ah ee u sharaxan kursiga beesha inay sanadkan haddii Allah raali ka noqdo ay ku guuleysato. sidii hore loo sheegayba oo gabdhihii hore ay ka hadleen, sanadkan ama doorashadaani waa doorashadii gabdhaha, waa doorashadii la rabay in dalka wax looga bedelo, waa doorasho aan rajaynayno in number fiican ay gabdhaha Soomaaliyeed ka helaan. waayo markaan saan leenahay iskama dhahayno, waxaan ku hadlaynaa aqoonta, waayo aragnimada, wadaninimada, awoodda iyo kartida ay gabdhaha Soomaaliyeed leeyihiin iyo sida ay gabdhaha uga go-an tahay inay ka bedelaan wax nolosha Soomaaliyeed. 30 sano oo dagaal sokeeye iyo dib u soo nooleyn dowladnimo aan ku jirnay. xafladan lagu taageerayo Maymuun Faarax Samatar magaceedu xaafiye markaan sheego waa gaashaanla sare horta ciidanka ahaa, logistic ahaa, doctoreso weeye, academy ah. waxay ka soo jeedaa maanta oon hambalyo uga wadnaa runtii ugaas Bashiir dadku u dhaxeeya. gabar ka soo tartamaysa Maymuun kaliya maaha, gabar ka soo tartamaysa iyo qof kasta, laakiin laba kursi baa reerkaas u leeyahay. Madhibaan Maxamed Gurgaati kursi gabdhaha in la siiyo waa la isku ayiday, kursina la siiyo ragga, kursiga ragga boosaas yaala. Maymuun xooga waxaan saaraynaa in gabdha la halgamaan, maartay la tartamaan. hadday kaga soo baxdo khayr dhaxdhaxaad uu ka yahay kulli ugaaska iyo nabadoonkuba. waxaan hambalyo uga wadaa markoo taageero wada ururka USR waa ruutis waxa qaaimadan iska leh guud ahaan marka la fiiriyo Ambassador Axmed Maxamed Muuse Daakir anoo secretary caamka ururka ah, inta waxaan taageeraynaa xuquuqda gabdhaha in la soo saaro. waa soo dhaweynayaa musharaxnimada Dr. Raisa Maymuun Faarax Samatar, aad baan u soo dhaweynaya. aniga waxaan ahay halgamaa beesha Maxamed Gurgaati ku abtirsada oo dhulkan koonfurta ah ku dhashay. waxaa galabta ii muuqanaya wax lagu farxo in dumar isa soo sharaxo oo Maxamed Gurgaati ka sharax oo weliba Madhibaan garaad ka sharax. waxay inoo tahay sharaf iyo taariikh aan la hilmaami doonin. rag baa ku fogaaday oo aqoon badan u leh Dr. Raisa Maymuun Faarax Samatar oo aad u taqaanaan Maymuun Faarax Dacar baad u taqaanaan saqayaasayo. aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa musharaxnimadeeda Dr. Raisada. weliba galabta waxaa galab fadhiya qof aan caadi ahayn, Batuulo Sheekh Axmed Gaballe oo ah gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed baa galabta hareer fadhida, warkeedu caadi ma aha. ugu dambeyn waxaa dhankeeda hadalka qaadatay musharax xildhibaan golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya Dr. Raisa Maymuun Faarax Samatar. ku dadaalay marka dadkaas inaan wax u qabto. waxaan asaasay NGO baan Puntland ka asaasay, minority women la dhaho, haweenka dadka laga tiro badan yahay baan magaciisa u bixiyay. ilaa iyo hadda wuu shaqeeyaa NGO-gaasi asagoo waxbarashada, caafimaadka, nooc walba ka qayb qaato bulshada, yacni muddo dheer u shaqeynayay. waxaan jeclaystay marka hadda maadaama aan arkay inaan wax badan ka qaban karo arrimaha bulshada, waxaan isiri amaad wixii wax ka fiican usii qabataa bulshada haddana mid ka si fiican aad samaysaa.
sidaa daraaddeed baa igu kaliftay inaan maanta musharax noqdo oo aan bulshadeenna wax ka badbaadiyo kursigaasna aan ugu shaqeeyo ummadda u baahan badbaadada keliya ma dhibaan ma aha ummadda Soomaaliyeed way federaalku ummadda Soomaaliyeed buu u shaqeeyaa oo dhan marka badbaadada ummadda Soomaaliyeed ayaan ugu talagalay kursigaas wixii aan u qaban karo waqtiga ii haray waqti yar baaba dadka u haray inta ii hartay inta wax iska sii badbaadiyo oo waxaan qabto wax ka fiican qabto Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa mahmaah Soomaaliyeed baa jirta oo ragga baa la yiri laakiin anigu waxaan leeyahay rag iyo dumar waa isku mid qofka bini aadamka ah mahmaahda Soomaaliyeed waxay leedahay waxa dad ugu daran qof hadduu joogana aan la tabin maya macnaha hadduu joogana waxa weeye aan la tirsan hadduu tagana joog aan la oran hadduu maqan yahayna aan la tabin ilaahay qofkaas oo kale nagama dhigo waxaan rabnaa in la tabo meesha aan ka soo tagno nala ka tabo meesha aan joognana nala ka tabaan rabnaa taas markaan ka gudubno inta markaan ka gudbo arrin codsi ah oo dawladda federaalka iyo maadaama aan musharaxahay dawlad goboleedyada ama dawlad goboleedka galmudug guddiga ama ha ahaada guddiga khilaafaadka ama guddiga doorashooyinka ha noqdee annagu waa cadaalad waxaan raadinaynaa waxaan meesha u taaganahay waa cadaalad cod hana la siiyo malihin kursi hana la siiyo malihin cadaaladda haddii la sameeyo kursigu asaga imaanaya waxaan ka codsanaynaa in ay kursigaas uu helo cadaalad inuu helo kursigaasi oo aan jiiro lala gelinin oo aan luuq lala gelin ee banaankaas uu yaalo doorashaduna si xor iyo xalaal ay ku dhacdo waan codsanaynaa Cabdirasaaq Cabdullaahi Fagaas warbaahinta Goobjoog Muqdisho